magaalada Nairobi xalay waxaa ka dhacay kulan uu soo qabanqaabiyay mid kamid ah musharaxiinta u taagan xilka ugu sareeya ee maamulka Jubbaland ee ka dhisan koonfurta Soomaaliya. kulankaasi ayaa waxa uu musharaxaasi la qaatay qaar kamid ah haldoorka waxgaradka iyo aqoon-yahanka ku sugan Nairobi ee Soomaalida, isagoo kala sheekaystay masiirka dalka iyo hanaanka Jubbaland sida loo arko in loo horumarin karo. wariyaha telefishinka RTN ee Nairobi Cabdiraxmaan Khaliif oo ka qayb galay munaasabadaasi ayaa ku eegaya warbixintan. musharax madaxweyne ee ismaamulka Jubbaland Guuled Xuseen Qaasim ayaa xalay kula kulmay dhalinyaro iyo waxgarad Soomaaliyeed magaalada Nairobi ee dalkan Kenya. kulankan ayaa looga dan lahaa in ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta dalkan Kenya inay wax ka ogaadaan qorshaha uu musharaxa u leeyahay ismaamulka Jubbaland. dadka meesha ka hadlay ayaa taageero u muujiyay Guuled Qaasim. aadaan ugu faraxsanahay in xafladan ka soo qayb galo quruxda badan. nin dhalinyaro oo isku sharaxayo oo rabo inuu awoodihiisa iyo hoggaankiisa uu ku tijaabiyo dalka Soomaaliya meel kamid ah. wax aad u fiican waayo runtii waan u rajaynaynaa inuu wax rabo oo helo. runtii sida akhyaarta u sheegtaba Soomaaliya xalkeedu aad u adag yahay. marxalad culus ayaan maraynaa. horena waa loo sheegay wax fiican ayaa la soo maray. meel waxaa laga yimid fog, haddana weli waxbaa naga khaldan. runtii waxaa muuqanaysa nabadgelyo xumo, waxaa muuqanaysa culeysyo badan. marka waxaan rajaynaynaa inuu murashaxu ka mid noqdo kuwa wax ka xalliya kuwaas dhibkaas ka jira Soomaaliya haddii la yiraahdo. runtii Jubbaland maalmahan waan aqrinayay waana daba socday sheekooyinkeeda. siyaasad xiisad fiican lahaa ka jirta. marka waxaan rajaynayaa haddii Ilaahay yiraahdo in arrintaas meel fiican ay ku dhamaato. ma jirin dhalinyaro loo badan yahay madaxweynayaal sharaxaya ee madaxtinimo isku sharaxaya ee manifesto wata, guddi la samaynayo, korjoogto loo yeerayo, waxaas ma jiri. waad ogtiin waxa la soo maray meesha waxa ka soo jiray. ninkii qoragarabka u saaray ayaa hawsha qabsan jiray. marka waa horumar aad u weyn. waxaan rajaynayaa marka in arrintaas the only hope oo aan haysano waxa waaye Soomaali dhexdeeda inay isdoorahayso. qofku marka waqti ka dhamaado in doorasho oo galo waxa ka khaldanaadaano waxayna dhameystirnaan. laakiin wax aad u fiican waa in mashiinka wareegaya uu istaag. waa meel fiican oo la soo gaaray. marka mudana murashax waxaan ku rijeeyaa insha Allah in si biis ay kugu dhamaato. meeshaasna madaxweyne oo ka soo baxo. adigana waa kugu hambalyeeynaa haddii Ilaahay yiraahdo. intaas kadib runtii wax badan laga sheekeeyay. Soomaaliya daa aqoon-yahan nahay iyo daa qurbaha ka nimidna iyo daa khibrad fiican yeelanay. markii aan shaqada qabanayno amba dalka hoggaankiisa qabanno waxba na qaldamay. waa fahmi waay. ruuxi amba qabiilkiisii ku laabana amba wax aan laga filayno meeshii la imaana. waxaan ku faraxsanahay oo karafi sharaama ah in aan caawa fadhiyo kulankan dhalinyarada aqoon-yahanada iyo siyaasiyiintuba ay isugu yimaadeen inaan ka soo qayb gala sharaf iyo karaamo ii tahay. ugu horeyn musharax madaxweyne Guuled Qaasim aan soo dhaweeyo. waxaan maqalkiisa igu horeysay xilliga uu wasiirka uu ahaa. kadibna markaan sii barbaaray ruudkiisa ayaa la isiiyay wasiir hore inuu ka soo jeedo iyo dad dalka waxtar iyo siyaasadda ka soo qayb qaato wax badan soo qabtay halgamaya ah inuu ka yimid. marka waxaan ku faraxsanahay caawa ka hor caawa waxaan kala socon jiray kaambeynadiisa iyo ololihiisa baraha bulshada ayaan ka arki jiray. aad baan ula dhacsanaa run ahaantii. dadka wuxuu ahaa qiimaha iyo qaayaha eela oo aan mar walba naawilo in ay meel Soomaaliya kaga soo bixi doonaan. marka caawa inaan mar kale hor fadhiyo waan ku faraxsanahay wasiirka iyo musharax madaxweyne Mr. Guuled. intaa kadib run ahaantii Soomaaliya
waxaa ficnaan lahayd marka hore inuu wasiirku uu noo warramo kabacdina annagu aanu markaa mataqaanaa wixii aan ka fahamno sheekadiisa aan taxliilino laakiin soomaaliya qof walba oo naga midi wuu ogyahay xaaladdeeda iyo sida ay tahay waxa ay ku sugan tahay intii burburkana meeshay ka timid waan la socnaa marka rajo xumo muujin mayno laakiin stiil waxaa noo muuqata inay gaabis inuu jiro dadka soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada iyo aqoon-yahanada xaggeenna inaan anagu marka hore iscanaanano waan leenahay waxaa kaloo farxad aan la soo koobi karin ii ah qof dhallinyaro ah oo naga mida oo maanta u taagan xil madaxweyne run ahaantii inta aan barataari karno inta aan qaadi karno in allaaliya inta aan tari karno inaan tarnay inay mudan tahay ila muuqataa dhinaca kale Guuled Xuseen Qaasim ayaa asagana dhinaciisa sheegay inuu diyaar u yahay in si habsami leh uu hogaamiyo Jubbaland waddanka la dhiso u baahan yahay yaa dhisay waa idinka marka isweydiisaan awoodii siyaasadeed xageebay waa idinka marka mas'uuliyadiina ma qaadanaysaan mise ma qaadanaysaan way su'aasha koobaad soo mid ma laba qodobka labaad siyaasaddu waa maalgashi ganacsigu waa maalgashi siyaasaddu waa maalgashi dadaalku waa maalgashi iskuul maxaa u dhiganaysaa waxaa ogtahay inaad jaamacad dhamaynaysid inaad digrii qaadanaysid inaad shaqo ku helaysid mustaqbalkaada kusii dhisanaysid waa waxaad maalgashanaysaa mogtahay rajo haddaysan rajo jirin de shanta maada tukan lahayn shanta waa maalgashanaysaa waxaad maalgashanaysaa sooma ya marka rajo haddaysan jirin dadaal ma jiro fadhigaa kama kacaysa waa run oo siyaasaddeena dhiiqay ku jirtay muddo dhiiqay ku jirtay haddaan ogolaano inaan dhiiqadaa kusii jirno mushkila ma jirto waa iska sii fadhinayna shida ma jirto haddaan nidhaahno bes dhiiqadii waan ka daalnay waa inaan ka dhaqaaqno maxay u baahan tahay inaan istaagno lugeyno u baahan tahay inaan istaagno lugeyno u baahan tahay marka waa run jiil ayaa waddanka soo maamulayay khibraddaas waa loo baahan yahay tii dhaqankaa loo baahan yahay oo dabcan waddanka markuu burburay dhaqankii baa lagu laabtay asalkii baa lagu laabtay 135 qof intaasoo milyan baa kala carartay si intaasoo milyan lasu soo celiyo 135 qof baa la soo qabtay haddaba fiiriya wax kasta asal bay leeyihiin ma ogto siyaasaddu asalkeeda waa rajo Guuled Qaasim ayaa horaan u soo noqday wasiir markii uu Xasan Sheekh madaxweyne ka ahaa dalka Soomaaliya Guuled ayaa sidoo kale ah aqoonyahan Soomaaliyeed Abdiraxmaan Khaliif RTN Nairobi